komishanka doorashooyinka qaranka ee gobolka saaxil ayaa saaka kala diray agabka iyo shaqaalaha ka howlgeli doona doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee maalinta Britola ka dhici doona guud ahaanba gobolka saaxil. Mas'uuliyiinta komishanka qaranka ee gobolka saaxil oo saxaafadda uga warbixiyay ayaa sheegay inay kala dirayaan saaka agabka iyo shaqaalaha ka howlgeli doona 240 goobood oo ay ka dhici doonto codbixinta doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee gobolka saaxil labada degmo doorasho ee ka kooban yahay gobolka saaxil. waxaanay saxaafadda u sheegeen in degmada Berbera ay codbixintu ka dhici doonto 199 goobood halka degmo doorashada Sheekhna ay ka dhici doonto 41 goobood. guud ahaan ay isku noqon doonaan gobolka saaxil 240 goobood ay ka dhici doonto codbixinta doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee isku sidkan. mas'uuliyiinta oo saxaafadda uga warbixinayeen oo hadaladoodii ka mid ahaa soddon oo bishii shanaad waxaanu ku guda jirnaa kala diristii agabkii iyo howlwadeennadii komishanka doorashooyinka qaranka ee gobolka saaxil. waxaa kaloo iyaguna hawsha qaybtooda ka ah ciidamadii nabadgelyada oo milatariga iyo booliiskii leh. waxaa insha allahu tacaala hadda aanu wadnaa oonu rajaynaa saacadaha soo socda inaanu dhammayno kala diristii goobaha oo degmo doorashada Berbera noqonaya 199 goobood halka ay ka noqonayaan degmada Sheekhna 40 goobood. isugeynta guud waa 240 goobood oo aanu rajaynaa insha Allah tacaala galabto wixii ugu dambeeyay inay si nabadgelyo ku gaaraan goobahoodii. hawl fara badan runtii ayaa halkan ka socota. waxaanu u mahadnaqaynaa oo had ilaa hadda la wada shaqaynaynaa xisbiyadii qaranka iyo maxaan ku rahay nimanka dadka la yiraahdo howlwadeennada komishanka doorashooyinka qaranka. hawl baan ku jirnaa insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa inay si khayr qabta oo nabadgelyo ku soo dhamaato. waad arkaysaan maanta waxaa halkan ka baxaya 240 goobood baabuurtoodii iyo agabkoodii baa ka baxaya. haddii aan la yiraahdo 31 May oo bariya waxa doorashadii baa inoo bilaabmaysa insha Allah. waxaan halkan kula dardaarmayaa ilaahay horta si nabadgelyo ah inoogu dhameeyo waayo caalamkii oo dhan baa inoo eegaya. waxaa yimid goobjoogayaal fara badan oo intii hore ka fara badan baa yimid. marka waxaan kula dardaarmayaa shaqaalaha komishanka guud ahaan Somaliland codeeyayaasha intaba in si nabadgelyo iyo transparent leh inay hawshaasi inoogu dhamaato ay inooguna dhacdo. waxaan kula dardaarmayaa dadka gaadiidka wata ee qaadaya caruurta dhalinyarada ah ee wanaagsan ee u bixi dalka ah ee u shaqaynaya ee ka shaqaynaya doorashada dalkooda u shaqaynaya. waxaan kula dardaarmayaa darawaliinta inay ilaaliyaan ilaahay baa wax ilaaliyee oo ka ilaaliyaan inay baabuurka si khaldan u wadaan inay cadho ku wadaan nabadgelyada ilaahay ku geeyo darawaliinta. shaqaalahana waxaan leeyahay si cadaalada oo feera dadkiina musharaxiintiina ugu shaqeeya. waad dhaarateen dhaarta oofiya oo ilaahayna ka baqa. musharaxiintana waxaan leeyahay wixii halkaa ka soo baxay go'aana ku qanca ku niyad samaada. guud ahaan dalku uu wanaagsan yahay alxamdulillaah. doorashooyin fara badan oo hore inoo soo dhacay tanna waa ka mid inkastoo ay ka casrisan tahay aad moodanayay inay ka dhib badan tahay inkastoo fududahay. waa laba doorasho isku sidkan waa markii ugu horeysay in sameeyno. waxaan halkan ka amaanayaa guddida doorashooyinka qaranka oo aan leeyahay hawl fara badan oo waqti cidhiidhiya aad ku sameyseen baad sameyseen. maanta oo bishu tahay 30 berito waa 30 waa maalintii doorashada galaynay. maanta waxaanu ambabixinaynaa agabkii doorashooyinka oo saaka ay bishu tahay 30 May. waxaanu ilaahay ka baryaynaa in ilaahay si wanaagsan doorashada noogu qabto. waxaanu ku kalsoonahay xubnaha heer degmo ee aanu dirayno iyo xubnaha heer goobeed iyo xubnaha heer gobol intaba aad iyo aad baan u bogaadinayaa sida quruxda badan ee hawsha noogu socoto. ilaahay waxaanu ka maryaynaa mahadoo dhan ilaahay waa iska leh. ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay si nabadgelyo ah oo qurux badan ilaahay noogu qabto doorashada. risalka aan u helno si qurux badan annaguna aanu noqonno dad wanaagsan oo qanaacad leh oo ku qancay doorashada iyo maxsuulka ka soo baxaba. waxaan leeyahay haddaanu nahay musharaxiinta iyo haddaynu nahay shacbiga Somaliland ee codaynaya iyo haddaynu nahay garsoorayaasha komishankaba inta qolal walba waxa la rabaa waajibkeeda inay ka soo baxdo. garsoorayaasha komishanka waxa laga rabaa hawshii si qurux badan inay u qabtaan
howlwadeen muxuu ahaa xisbiyada iyo munaaqibintooda waxaa laga rabaa inay marag fiican noqdaan musharaxiintana waxaa laga rabaa inay noqdaan dad wanaagsan oo qanaacad leh oo diin leh la wada heli maayo kuraasida boqolkiiba 3 baa helaya kuwa kale waxay noqon doonaan xildhibaanada sugayaasha loo yaqaano Gamta Ismaan Ali warka Horyal TV Berbera